20 Oktoobar waa maalinta loo ballansan yahay ololaha xisbiyada qaranku ay ku muujinayaan xuduudooda taageero iyada oo maalmo yar oo kooban ay ka hadhay ayaa waxa haddaba suuqyada magaalada Boorama iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama ay ka kooban tahay lagu arkaya dhaqaaqa borotanka xafiisyada xisbiyadu ay ku yeelanayaan oo indhahaagu ay qabanayaan sida loogu diyaar garoobay maruusaaka telefishinka caalamiga ee SBS u kurgalay ayaa waxa aan wax ka weydiinay saddexda xisbi qaran gudoomiyeyaashooda bal sida ay ugu diyaar garoobeen ololaha fooday nagu soo haya iyada oo xisbiga kale ugu awood sheeganayo iyada oo badiba lagu kala awood badan yahay ayaa haddaba midba midka kale awood iyo cod iyo cududba ay ku yeelanayo degmada Boorama ee gobolka Awdal waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka warbixinaya ololaha waxa weeyaan laba guddi baa horta uu gudoomiyuhu halkan ka dhisay guddi waxa weeyaan guddidii gobolka guddidana waa guddi heer qaran oo campaign oo wasiirada rag badan ay ku jiraan oo ciyaano sharaf mujtamaca ku dhaxle marka diyaar galow weyn baan maalmahan ku jirnay waxaan diyaarinaynaa xafiisyo aad u fara badan oo degmada Boorama ka furayno aad u badan runtii oo ay dadku ay samayn doonaan inay campaign-ka ay hawlahooga ay ku qabsadaan marka xafiisyadaas Boorama aanu ka furnay waxaan ka furnay Albaki xafiisyo fara badan iyo tuulooyinka hoostaga waxaan ka furnay Lughaya waxaan ka furnay Zeyla waxaan ka furnay intan buuraleyda ee Boon iyo ma garanaysaa Xariirad iyo intan buuraleydana xafiisyan ka furnay oo waagi dhaweedeen booqashada ku tagnay aan xafiisyo fara badan ka furnay marka ololaha si weyn ayaan ugu diyaar garownay xisbiguna waa u diyaarsan yahay taageerayaashiisuna way diyaarsan yihiin haddaan waxaa ka hadlo qaabka diyaar garowga campaign-ka uga socda magaalada Boorama runtii xisbiga wadani ahaan waxaan u diyaar garoobaynaa campaign-ka fooday nagu soo haya ee waqtiga kooban inooga hadhay ee la filayo inuu bilaabmo 20 bisha insha Allah ka xisbi ahaan runtii waxaan diyaarinay xafiisyo kor u dhaafaya ilaa 40 xafiis oo aan ugu talagalay 4 waaxood ee magaalada u qaybsan tahay Sheekh Ali Jawhar Sheekh Ahmed Salaan Sheekh Makaahil iyo Sheekh Ismaan oo min 10 xafiisa marka 40 xafiis bay imika ahaan noo furan insha Allah inta campaign-ka horeysan waxaan rajaynaynaa inaan 40 kale ku darno taasi waxay noqonaysaa 80 xafiis inaan ku yeelano oo aanay ku jirin labada xarumood waaweyn xarunta dhigta iyo xarunta shacabka ee gobolka ee meynka marka waxay noqonayaan 82 xafiis inaan ku leenahay gobolka oo 80 ay xafiis yihiin labana ay xarumo yihiin xarumo waaweyn oo runtii qalabeysan oo dhameystiran taasi waxay ku tusaysaa runtii cudud iyo awood aan ku leenahay ka xisbi ahaan gobolkan Awdal iyo guud ahaan gobolada galbeedka Somaliland waxaan filaynaa insha Allah inaan codka ugu badan ka heli doono shacbiga reer Awdal iyo dadka degmada Boorama ilaahay inuu gaarsiiyo nabadgelyo iyo amaan xilliga doorashadana shacbiga waxaan u sheeganaa inay isbedelka ka qayb qaataan nolosheena isbedeli doonta dhaqaalaheena isbedeli doona sixir bararkeenu ka bixi doonaa saxaafadda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta nagu soo booqatay xafiiskii gobolka ee cadaaladda iyo daryeelka xisbiga mahad ballaaran baan u celinayaa saxaafaddu waa meesha kaliya ee had iyo jeer ummadda la socodsiisa xagga wacyiga iyo xagga siyaasadaba iyo xagga maaragtay dhibkaba intaba iyada noo hormooda waxaan leeyahay maanta mar haddii ay wax yar inagaga dhiman yihiin ololihii iyo doorashooyinkiiba annagoo ka ahaan xisbi ahaan ka gobol ahaan waxaan ugu diyaar garownay si aad iyo aad u heer sarreysa taasoo ah xafiisyo badan ayaan ka furanaynaa degmada Boorama nawaaxiga degmada Boon Qulujeed weeraar waan ka wada furanaynaa iyagana oo barweyn nooga furan yihiin haddana waxaan ku tala jirnaa inaanu hoos u sii dhaadhacno degmooyinka kale ee gobolka Lughaya Baki Zeyla intana way nooga furan yihiin aan ku tala jirnaa inaanu halkaana gaadhno oo dardar sii gelino ka degmo ahaan waxaan qorshaysanay degmo Boorama maadaama ay tahay degmadii ugu ballaaran ugu dadka badnayd gudiyo waaxiyo kala duwan baan ka samaynay oo koox iyo dhalinyaro xafiisyo badan oo aan ka dhex furaynaa si kastaba ahaatee borotankan iyo loolankan xisbiyadu oo ugu diyaar garoobayaan ololaha oo maalmo yarun ka hadhay ayaa waxa laga dhuursigi doonaa waqtiga loo ballansan yahay waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Boorama.